hadda waxa la sheegayaa in Cabdiraxmaan hadda kulan ku wada jira xirsile halka ku socday waa arrin cadaan ah arrinta halka ka socotayna waxa arrin xasaasi ah oo Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxaysa arrin khatarana ka socotay dawladda Soomaaliya ila awal hore wadani weyn ogeyn inuu Soomaaliya la socday inuu halka Xasan Sheekh Maxamuud ku soo kulmaan xirsile halkaas ku socday Cabdiraxmaan iyo Xasan Sheekh Maxamuudna hadda ay fadhi leeyihiin oo ay shir ku wada jiraan sida wararkii ugu dambeeyay cadaynaya waxa weeye reer Somaliland oo fartaadu yee noqonin mid Somaliland u horseeda inaad bilaa hadal ku tagto Soomaaliya waan war saxaan idinsiinaya bal u fiirsada Cabdilaahi Darawale muu tagin ina xaashina muu tagin muusana muu tagin ina kaahina muu tagin ururka oo ina daamurna muu tagin inantuna roodina may tagin qof kale oo tagay ma jiro waa xisbigii wadani maalin kasta wuxuu ku sii carraya halka shirar ka dhacayaan ee dawladda Soomaaliya tagayso ayuu ku sii carraya subxaana ya cadiim waxa doontaa aflagaadiska hadla aan fartaan doonaan qoraay idin lama ay taba markaan doono iska kicin laakiin dhigdi ma war xaqiiqa markaan haye waxaan idin sheegay reer Soomaaliland oo yar iyo weynba xisbigii wadani wuxuu kulan la lahaa Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Muqdisho rumbaan idin sheegaya waana war xaqiiqa rumbaan idin sheegaya reer Soomaaliland xirsina maanta wuxuu ka duulayaa diis halkaas uu tagayay 12 baa lagu xidhay galabta 6 barkii waa la sii daayay inuu baxayan kale sharciga waa laga yar hayay laakiin ma hubo taas laakiin waxaan idin sheegayaa xisbigii wadani gudoomiyihii iyo musharrix bayna Xasan Sheekh Maxamuud la kulmayaan isla hadda caawa inuu Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyuhuna kulmeen warkaasi waa biyo kama dhibcaan rumbaan idin sheegaya reer Soomaaliland ma maqlaysa quraanjay ku quuso ogow dhuumashada qaar uu dhabarku muuqdaa waa dhibiye hadimee xisbiga wadani waa mar huwan u hiiliyo maruu ciidanka qaranka yiraahdo waa la gumaaday oo ciidanka qaranka ka hor yimaado maruu Xasan Sheekh Maxamuud tukri kula soo shiro maruu Xasan Sheekh Maxamuud kula soo shiro maxaan ku raahdaa in Uganda maruu Xasan Sheekh Maxamuud maanta ugu dambeysayna uu shirarkii ugu dambeeyay kula leeyahay magaalada Nairobi taasa dhacday وانا دي شيء يا ماشاس عارفين حساسية كسر حس الشيخ محمد الدولة الصومالية وتكتي أو كذا الصومالي لا هدي هودا تاي هدي بطة تاي قرار الخير وطنينا وحي وتجين إن طبعا إن كوكا رفسية حسب وطني وحكوكا رفسية يا إن هودا الصومالية إن الصومالية تلك الصومالية وقعنتكو حيو وأن تلك لنا اللي جايين صومالي لنا لقى سوق قاعدة هودا أو لقى صاروخ oo gacanta ku haysta dawladda Soomaaliya oo xaq u leh dalka maamulkiisa sidaas oo xisbigii wadani Nairobi la dhex taagan yahay